magacayga waa Cabdiraxmaan Cabdisaaq ka socda Jaamacadda Ummadda Soomaaliyeed muddooyinka ugu dambeeyay waxaan ka howlgelinay xarunta wicitaanka dhexe ee xanuunka loogu talagalay xanuunka coronavirus xaruntan inta ugu badan waxaa soo waca dadweynaha ama shacabka Soomaaliyeed ee raba in lagala taliyo ama baaritaano loo sameeyo ama xaaladaha emergency-ga ku jiro baa soo waca xaruntan 24 saacadoodba way shaqeynaysay ilaa muddooyinka ugu dambeeyay xanuunka dalka laga sheegay kiiskii ugu horreeyay xaruntan waxay shaqeysaa wicitaanka 24 saacadoodba shaqaale badan isku bedbedelo dadka soo wacaya badankood waxay iskugu jiraan dad xaalad emergency ah oo raba in gurmad degdeg ah loo qabto haday noqon lahayd waxyaabaha qofka siiya neefta iyo qaar xaaladoodu ay degan tahay oo raba la talin ku saabsan xanuunkan dilaaga ee coronavirus iyo dad kale ayaguna si ka baxsan waxyaabihii loogu talagalay koolkan u soo waca marka dadkaas dambe waxaan halkan uga baaqaynaa haddii aysan qabin baahida loo sameeyay lambarkan inay ka baaqsadaan wicitaanka malaayacniga ah si dadka kale ee Soomaaliyeed ee baahida u qaba inaan u adeegno ay jaanis ay u helaan marka dadka soo waca oo kuwa oo xanuunka ah haddaan laba u kala qaadano qaarka kuwa xaaladoodu degan tahay waxaa loo sameeyaa la talin waxaa jirto waxa urur dhakhaatiir ah oo consultation u sameeya dadkaas oo aan ku xirno oo badanaana lagula taliyo inay xaafadooda isku karantiilaan kuwa kale oo u baahan xaalad emergency-ga ana markaas waxaan sameynaa in loo fidiyo caawinaad ay u baahan yihiin ama markaas aan u awoodin